dunida maalin kasta waxaa ka sii baxaya dad aad u fara badan kuwaas oo u galbanaya gurigoodii saxda ah ee Ilaah subxaanahu wa ta'ala ugu talagalay gurigaas oo loo baahan yahay in markaasi loo shaqaysto iyadoo shaqadaasi ay tahay shaqo ugu dhawaanayo Allah subxaanahu wa ta'ala markii dadka uu abuuriyay waxa uu kala saaray lab iyo dhidig ayuu u kala saaray uu ku yiri waxaan idin abuuray in aad caabudaan idinka oo kala baxaya jin iyo insiga adduunyada jooga waxa uu la kulma dhibaatooyin fara badan dhanka nolosha oo qaybahooda kala duwan leh bani'aadinka ayaa waxa markaasi lagu waajib yeelay 5 shay oo inta badan dadka muslimiinta ay wada garanayaan qaybahooda kala duwan balse waxaan ilowsanahay in maanta oo kale loo galbin doono gurigeena saxda ah qof walba waqtigiisa uu geeriyoon doono haddaba Sheekh Abdullah Ciise oo kamid ah mashaayikhdda ku nool xariyaha qaxootiga dhaab ayaa maanta waxa uu khudbad aad u qiimo badan waxa uu ka jeediyay mid kamid ah goobaha la isku aaso xarada qaxootiga xagar dheer oo geeriyootay hooyo Soomaaliyeed kuna geeriyootay xaafadda Jeyteen ee saxarada qaxootiga xagar dheer hooyadan ayaa waxa ay ka tagtay caruur yaryar iyo kuwa weyn intaba waxaana aaskeeda iyo janaasadeeda ka soo qaybgalay qaybaha kala duwan bulshada degan xaafadaha isku dhow ee ku yaala goobta ay deganeed haddaba Sheekh Abdullah ayaa waxa uu markii horeysa uu ka hadlayaa qofka muslimka ah waxa ku waajibka ah lanko ini aralo iskeeyo siyaan atan lanko no walay datis dhaxyaala iyo walka akhriisada iyo walka ogsiin marka meelun may oo baahantaa diyaar garow oo wiin yaninka baahan lankastowna taariikh ilayda usugoyna ma lan hada waaritiin la siin ma jiro lanki cumro dheer la siina ha socdo lanki cumro shay la gaabi ha socdo walshal hirid la dhahi ma jirto kullu nafsin daa'iqatul mawt naf kasta mayda dhamyaase marka mood lishal bahe marki naftaasay oo mood kala dhamiido lishal bahe marka kullu nafsin daa'iqatul mawt wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamah wala ninisoo fi yawmay hayti dee un shal qaadani ma dacwad unu dhataana eshaleediye ma xuquuq rabbi noolahay unu guduni iyo xuquuq rabbi noolahay unu gududu wayni lamadiya inaska jirta marka wa innamaa tuwaffawna ujurakum yawmal qiyaamah faman zuhziha 'anil naari wa udkhila al-janna ruuhi marka la ka dheerayo oo naar la ka dheerayo oo jannan la geliyo faqad faaza wa ilaahi jalla jalaaluhu marka faa'iizintaas sidii unan ka daragno awalan ini hortoona alla bari sameeyno wal adiga aqlaga lay faa'iizintaada ka daramo kortoma والدلالك أي جهد لك أي كديرو كرتما ما يوالي جهد نفتس ما دي لكو هوجي ما يشاغل ولا تقوى راس الملك إنون إلهي توفيق تنوافج إنون إلهي كبرينو توفيق تاسمركي حالنا هدنا الثبات في الدين إنون هدنا كسوغنا نو ما يوالي بولالا باي شلي أهل توحيد هاي تجيغنو وكافرين واي شاكما لا تاس ولي بحد الزمن كن دم سلان الناس دا ومروي بقول شلي قال هاي تجيج إسلام وي النبي الله محمد إلهي بدوردي والرسول أول مخلوقات قدن وإجماع وين يسأل كفضل بدني إني هذن إلهي قال نما هنروجو حاشا لله إلهي كحالي مسنيا رمتاس لكن أنو تيدان بلانقاد من هايسن هكذا غاني بددي ومانتاني بدتي dhanka kale Sheekh Abdullah Ciise ayaa waxa uu sheegay in bulshada ay aaminto diinta ayna aaminto ulmuuldiinkooda u qaashooda waxaana uu sheegay in dad fara badan ay maanta ay sameynayaan wax aan wanaagsaneen kuwaas oo wanaagsaneen hab dhaqanka bulshada iyo diiniga intaba markale isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yiri lama islaaliya may dheegasay hibelhii stationka geegi jirdarhaday dhawali ilaha stationka roognahu misad lahay in ku duubay ay isirooy gaal islaamba may
ونو أهل التوحيد كي أساس نستمر مرنما وخطر عظيمة نبغى ميلي صلى الله عليه وسلم فكو ورفرضا على عانية كو لخفالة دي حتى واجب عيني أو أنه يتروه الليهري إنه نحفرنا هذا من سيهر نكوارم هذا الجهل كفروفة دي هذا المال كفروفة دي هو أغلى انقلفة دي إنه روح إسلام كاريك جيل كبيدو لفرابي هو بنسيه قادنو وقتر صومه واجب كوركان سارنا يقولوا جلدوا وينيانا غلاس أرتو قضب كاس ما يليا نفتي ذا يا إخوان كورتام ما يمكن تقدر ما إني كتوب بشيء أرنتاس ولي بسيا ما إدانا جدا 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 هذا ولي هاتوبا هذا استيشن كما يبغى ور علمي لنا أو عقولي لنا أنت في ذا ما لم يقف أو تشال قبضاس مالها أو أنتم ولي قبضوا وايتيا لما قال إيه قبضاسي أو مدكره markii uu meel seeno lanki ad jeeytin lan toma malle adana khamraga la ko edayside usun khamraga la ka edaysay baadana idin unaga daalisiin ma aglaba walaagas dadaan nami noo jirtay nami oo taas horta inis dhaangne taasay markii aniga reed anaga hankanagado ruux walbo inta ku sugay darado waato maamaashi reedey jeefta جبر أنا كساو بل أرضي ذا يو أدهكون أني جنازة يكتوك ديردي يال تان توكلو بيرين أني له يوذي أنس كوكلو لأن له يوذي هذا نشاك مالا ميلو مركز ديار جروني سدي أنو دنك ديار جرو فدني إلهي كتوغنانو إني مركو أنو كسوغو نانو أنو كسيد دول صانو زاد قادة نمر dhanka kale sheekha ayaa waxa uu ka hadlay teleefanada smartphone-ka ah goobaha lagu ciyaaro kubadda cagta kuwaas oo sheegay in ay ka mid tahay waxyaabaha diinta lagu maran habaabiyo waxyaalaha maala yacniga in iska dhaafneen hadan maala yacni zimnada dambe balowga habahi telefoon kaamirin hanin saare olmi aamanin kastaba heeska jeebka ku wada hadaa hees ma ilka sheegi jiri aamil ka sheegi jiri sama والماذا بإنشدني بعد ما يشيء قاسات يا جيب كقوة ويدن أرن تاس من كيبا عاقل أريد أن راه كرا دات أضيال جيب غير كوكويا إلروج أنا وير بحالكم كاميرون أنا ما هاي سدجرنا كو ما ينكبل أوي والفيلن لبح أو بس لك جلاه هذي بينتي أتون بيوم ده كدام بميلن قديي من كسب مركز دلوض قاب نو عيال شيء وسئيو كمشغولان وبحلاس جين فير سدا كدام بكل كون سائل لك بدل فادي لان كس جاب كلنجيني كل كهس أما كل كدين كمشغولان دين مال كمشغول كل فرصة داسي مركز أديك كمودا سنو فرصة قالي أول نبغى الله صلى الله عليه وسلم إذا تنين 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك موضوع كاسا كمده ورد أيارنمدا نين ولبو كفائدة يسوي انتي أديك أنوايل لانك وايل كبعبادي لك الرب لكن روح وايل كأيون ان دالان يرى اسكمد ما انتان هدن ان قبرغا سنتي دفع كدو انتها كديو الله لكو لكن وايل كانت انتي هجا كبود انت ما كدي كورسوما عبادة دان واساس وكما يلك يابا انتاسو صلاة الليل الجود إني أديك تكتو قرآنك كريمك كين فضل ديه ما دام إلهي فضلني كشاي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر من فضل ديه إني القرآن كريم كونو كددا لنا أو تلاوة مع تدبر إلهي نطورنا إنها سليو تلافون كولان أنتا بداي ميلو لم تلافون شكا يا قرآن ما أخري كور إخواني دلان يرتان كل هروتي بلوم ميغا غارون هاد درس كيكلي هادي أنيق بيان أنيق كدار تمني كدو تمني هالون يران أوويدي بس هارون تتيدي انتا سين قال مال أنفرنا مسلمين أنفرنت فيري كورتان ميلي مركيني دانوين لكلية
iyo ini dan la'aan eta muslimiinta ay fiiriyi kortaan lan unu noomid ay haddii usu dhaha meelanga guri ku surude deegaan hambahe askariya hambahe kii shacabka lalaay hambahe laakiin haddii inta binaankun lakahaaga bahal baloonge hal askari kooyaw aragtana askari balooni shal buryaw aragtana maya bal haddii labta da'awbu waxyaalaha diintan ini hoos lanka dhiga lanka tira galay way walaaga sayd oo marka mayna ninka baahin tafakkur unu weeldano zaad sidii unu ka qaado fadna midakal nabagaanada wafaadi sallallahu alayhi wasallam haddii nabagaana wafaadi adoon iska dhimadi managana nabaga balligu ani walow aayah wa nabiilay oo lambalon boodi nabaga aayad intii marka heegshay ka naqli dadka jeersi kore waarisiinti geega diintu usurun una way dadka lu sugaw ma jirto malaa'ig mahandigaas mursal mal sugaw muqarraba oni diintu usurun la rabo ikhwaan insha Allah ta'ala dadku kuleela hay halay doon la dhafarsanay min kasto intaan diyaar garow korto iska fiiri bari la kashaana hadhow la kashaana geeshe la ku wadasha akamala marka intaanu ghafligo una kabano isahawigo una ka jarna bal boya dhaha koriyo qasaari ku suugna inuu kabano diintan sidii ku noolay fadnay qabroguna una hanka diyaar garow fadni may wali ruuha fitka nabaga may min eday sallallahu alayhi wasallam marka in ka tiriyar tumun goos oo tumun shakhs ma tumun goos idin marka inaad cadaabka ka badbaadiyas ada kalima adiga intii naartu ku badbaadiyo oo janna la kijeeyo tumun goos oo idin ani naartu la ka badbaadiyo yarmiya walaagas wal baloon iyo marka meel surumow iyo sheeka la ka dhamaayo kormiya marka insha Allah sidii nafta tiidan oo anfacno oo nafta walaaldadanana iyo islaamku guudboon oo anfacno dadaalnen martili jeeli Allah kuwa martili jeeli Allah kuwa ilaahi ghafuurur rahiim kaay martidi li jeeliday kitaabji midig Allah ku soo rawjina toorafti Allah ka dhig walaagi dhaafti wal barakale Allah kuwa ilaahi azza wa jalla onu dambiga idan baa la keenay mamuun ala aska dhaaf faata hadii salan cabir saaq kaahi miftaax SBTV xariyaha qaxootiga dhab